الإمام الطبراني في الكبير كورينيو، إمام أحمد مسند كيسة كورينيو، الشيخ الألباني الصحيح هذا وقصص صار سدح بقولية ضباطا سلسلة الصحيحة. وحديث كي دلين رضاها النبي قوي صلوات الله وسلامه عليه عن أبي أمامة قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. صحابك كانوا وحو شيقيا إن نبي صلوات الله وسلامه عليه نندل يريه يمي أو كير إله الرسول كيسيو أنا الزنا ده ينفصح ليس يا بارحبا ويلك كانوا وحو طلبنا يا فصح فصح أسيوحي ودون يسغي حبلا يرى لك لا تحمرين دبتنا دتي ويكسو جستنا ولا دقالا فأقبل القوم عليه فسجروه ودقالا وقالوا مه وحبكوا هذا ما يسدعام وبالي مجلس نبي محمد فرديه صلوات الله وسلامه عليه وصحابته فرديه دي مدون بالمجلس كادغو فرديه قياسو مدون انتو halka ka soo galo yiraahdo zinada iyo galow nabi maxamed yani sawirku kula yeelan laha yani nabiga ka kaalay صلوات الله وسلامه majlis nin caalimi fadhiyo oo ardadiisi iyo xirtiisina fadhidaan nin soconayo intuu yimaadaan uu yiraahdo sheekh anigu waxaan rabaa in zinada la ogolaado يعني wax غريبة ولا لا يابا بيا ولذلك بي صحابتي ماشي فردين انتي دقالين مهما ليه نبي صلوات الله وسلامه عليه وحكيري ادنو سودوي بكيري لغما قيلت لغما بوغي سودوي بالوي ويلكي وسودوي هذا النبي قورتي سلا فريسي صلوات الله وسلامه عليه marka hortiisa fadhiistay wuxuu nabigu ku yiri luqatul xiwaar buu bilaabay marka waa mamnuuc ah oo noqonin arrinka lagu moodo waxa loo tilmaamay in la qancin karo wuxuu nabigu ku yiri atuhibbuhu li ummik arrinkan aad ka waramayso zinada hooyada ma la jeceshay buu nabigu ku yiri wiilkii wuxuu yiri la wallahi ja'alani Allah fidak maya ilaahay baan ku dhaartay alle madax furashadaada hayga dhiga buu leeyahay nabi maxamed owe inaanan la rabin hooyaday arrinka in lala soo agmaro qaala wuxuu nabigu ku yidhi markaa wala annaasu yuxibbuuna liummahaatihim dee dadka kalena hooyooyinkood lama jecla buu nabigu ku yidhi wiilkii buu haddana la hadlo wuxuu nabigu ku yidhi atuxibbuhu libintik libnatik inantaada ma la jeceshay dad inan dhashay inantaada inay zaaniya noqoto ma la rabtaa wiilkii halkii buu maray may buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay inaanan rabin marnaba inantayda in cidi soo dhinac marto qaala wala annaasu yuxibbuuna libanaat dadkuna hablahay dhalaan ninna lama jecla buu nabigu yidhi wiilkii buu la hadlo wuxuu ku yidhi walaashaa ma la jeceshay may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ilaahay baan ku dhaartay inaanan walaashayna in nin soo agmaro rabin wuxuu ku yidhi nebigu dadka kalena lama rabaan hablaha walaalahooda in cidi soo agmaro ma la rabtaa buu ku yidhi eedada may buu yidhi dadka kalena eedooyinkood lama rabaan buu nebigu ku yidhi ma la jeceshay buu nebigu ku yidhi habar yartaa may buu yidhi wuxuu nebigu ku yidhi dadka kalena habar yartood lama rabaan ninkan intii caar u ahayd intii haweene ku ag wareegsanayd oo dhan baa loo tilmaamay oo ah hooyadii tuu isagu dhalay tii la dhalatay tii eedada u ahayd tii habaryarka u ahayd intii ku xeernayd oo dhan buu nebigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh intaa midnaba miyaad rabtaa buu leeyahy in laga zinaysto may buu tilmaamay intaa midnaba ma raba inay zina aragto wuxuu nabigu markaa u sheegayaa intanaad ku socotaana ninunbay intaa midunuti ninunbay habaryartii ama hooyadii ama eedadii ama walaashii ama inantiisiitay qof muslim oo kaleo meesha jooga ayuunbay walaashii iyo habaryartii iyo eedadii iyo hooyadii tay walidaalika intaa markuu nebigu ku yidhi ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi intuu gacantiisii saaray wiilkii ayuu duceeyey wuxuu ku yidhi allaahuma akfir danbah watahhir qalbah وحصن فرجه
صحابي حديث كوريني يا وحلي فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء نبي قاو دعي مكان سوح ودعي إله الدنبقي سقاف قلبي سنة طاهر يا لو نظيف فرجي سنة ضوء صحابي حديث كورينا يوحي ويل كاسو قبر دنبا هذا الهيا بلا ما أرك حقا هبلابا سقو إيغا يلا ما أرك يعني ويل كان يوحى ودونا يي وفسح وربي الزنا يهي لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه وحو الربين كقن عيا زندو إنه وحن طاي وحو الربين كقن عيا زندو لحظة ننك يا قبر يسوتك يقول إنانو يجينينو يقع علاقات يا حديد كبرشادة كتحينية إن لو تلمامو سيدا آدو قوين لهيدا ما يقول فال حنطهي انت هذيك كوغو ريكسن ان عيدسو فرقليسو ان اد ودرينتid inay fool xun tahay adiguna xaqaad ku socoto qof kale oo muslim inay saa ugu xeeran tahay inay qof kale oo muslim ah habar yar hooyo eedo walaaliya inay u tahay qofka muslimka taar rumaysta wuxuu garanayaa xidhiidhku mujtamaca la leeyahay marka walaalkii inaanu walaashii weydaaran walaalkii inaanu hooyadii weydaaran walaalkii inaanu eedadii weydaaran maadaama aad barabin intaada in cidi soo dhaafto ama ay ku soo wareegto sadaradeed waxaynu xadiidka ka arkayna isagoo nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi nin shaaba oo u qasdiyey in haween loo fasaxo la hadlaya qaabka uula hadlay wuxuga dhaneeyey